waryaal labeeyo liibaanay halkani waa Mahdi Saateeye maalmihii la soo dhaafay waxa si weyn u muuqatay in xisbigaasi ka ah gudoomiyaha ka yahay mudane Maxamuud Xaashi Cabdi in si weyn iskaga casilayaan xubno muhiim u ah xisbigaasi oo ku kala sugan dalka gudihiisa iyo sidoo kale dibadiisaba maanta u dambeysay gobolka Togdheer waxa iska casilay xogayihii gobolkaasi Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyihii degmadaasi Warcibraan iscasilaadana waxay u muuqataa inay noqotay sidii tusbax furmay haddaba adiga daawade maxay kula tahay inay sabab u yihiin iscasilaadda xubnaha muhiimka oo ah xisbigan ee muddada 7 cisho gudaheeda ay isku casileen xubno tiradoodu ay buuran tahay waxaan halkan ka cadaynayaa xubnimadii xisbiga iyo xilkii aan u hayay ahaa gudoomiyaha degmada labadaba inaan maanta ay taariikh u tahay 17 bishii afraad 2026 inaan iska casilay ay tabina maayo waxna ka sheegi maayeen laakiin waxa uu arkay inaan si wada shaqayn karayn oo aanan dibada keenayahay in wixii ugu weynaayo madaxweynenimada in lagu dhisaabay doonayaan de xisbiga ka inaan madaxweynenimada ku dhisi karayn baa ii muuqatay halkaas uu iga dhayahay oo shaqayntii xisbiga ka magacayguna uu yahay Cabdirasaaq Jibriil Aadan Caga Yare inaan maanta taariikhdu tahay 17 bishii afraad inaan xubnimada baneeyo isla markaana odaytinimadii aan kula shaqeynaya 4 sanadood iyo badh isagoo aanu ahayn urur iyo isagoo urur ah iyo isagoo aan xisbi la gaarsiiyeyba inaan maanta xilka aan u hayay iyo odaytinimadii aan kula shaqeynayay iyo intaba aan ka cadeeyo halkaa inaan la sii shaqeyn karayn oo aan la sii wadi karayn aan xubnimadii saa ku baneeyay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam maanta ay taariikhdu tahay 17 abriil bishii afraad 2026 waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo in aan xubnimadii aan u hayay xisbiga ka oo ahayd xogayaha gobolka Togdheer magacayguna uu yahay Cabdirasaaq Jibriil Aadan Caga Yare inaan maanta taariikhdu tahay 17 bishii afraad inaan xubnimada baneeyo isla markaana odaytinimadii aan kula shaqeynaya 4 sanadood iyo badh isagoo aanu ahayn urur iyo isagoo urur ah iyo isagoo aan xisbi la gaarsiiyeyba inaan maanta xilka aan u hayay iyo odaytinimadii aan kula shaqeynayay iyo intaba aan ka cadeeyo halkaa inaan la sii shaqeyn karayn oo aan la sii wadi karayn aan xubnimadii saa ku baneeyay waxba dibada keenayahay taabadan baa xisbiga galay ragii ku soo tabcay xisbiga ka dhigan oo ay tabina maayo waxna ka sheegi maayeen laakiin waxa uu arkay inaan si wada shaqayn karayn oo aanan dibada keenayahay in wixii ugu weynaayo madaxweynenimada in lagu dhisaabay doonayaan de xisbiga ka inaan madaxweynenimada ku dhisi karayn baa ii muuqatay halkaas uu iga dhayahay oo shaqayntii xisbiga ka waxaan bulshada aan ugu baaqayaa dadkii aniga ay taageersanaa ee hadii beedankii aniga igu taageersanaa ka waxaan u cadeynayaa inaanan ka ahayn la sii shaqayn karayn halkaa wada shaqaynteena ay ku eegaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigoo ah Ciise Jaamac Nuur oo ah gudoomiyihii degmada Warcibraan ee xisbiga ka waxaan halkan ka cadaynayaa xubnimadii xisbiga iyo xilkii aan u hayay ahaa gudoomiyaha degmada labadaba inaan maanta ay taariikh u tahay 17 bishii afraad 2026 inaan iska casilay marka waxaan leeyahay wax kale aan u sheegi maayo wax kale galgali maayo waxay hoggaanka xisbiga waa maatan yihiin intii aan soo shaqeynay oo soo wada shaqeynayna waxa weeyaan inta loogu eekaato maanta wixii ka dambeeya waxa weeye ayaan halkan ku cadeynayaa shaqadeeda inta ku dhamaatay. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.